الفتاة مكان المحبي قلقع المسؤول وكوسو مسؤول شعبك سربي منان لها برشدا عدي ما تلو وكي شيء ما أدري أعطيك حتى حياة صوصة البيت ما شاء الله عليكم السلام ورحمة الله ما توحوا جرجر دير على قصو صار وصلنا سوريبه يا وصلنا هو قبريبه ميا ما شاء الله والله تم نفوش هي اربط صفوره ميا ايوه ان انا قولي وصل على النقطه أيه. انا كنت ما بعرف بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo bishu ay tahay 24 maalin jimco ah sayidul usbuuc ah waxaan joognaa gurigii abwaan maareeye ku xigeyn maki xaaji banaadir oo nagu casuumay qada aad iyo aad cajaa'ib u ah isaga oo na dhex fadhiya wasiirkeenna aanu jecel lahay mudane cabdifataax oo fannaan ah aad iyo aad baan ugu faraxsannahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maareeye ku-xigeenkana waa u ducaynaynaa qadada muhimka ah waana ka mahad celinaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله marka ugu horeysa alla ayaa mahad iska leh bahda fanka iyo suugaanta oo nasiib u helay in wasiirka warfaafinta u noqdo nin fanaan iyo abwaan isku ah iyo dhaqan yahaan iyo geesi iyo aftaan iyo wadani intaba saaxiibkay maki buurfoole u mahad celimayno asuumaadda abwaaniinta oo dhan ayuu ku matalay magaceena asaga waajib oo guta weeye waxaanse u mahad celinayaa wasiirkeenna sharafta badan oo ah nin suxufi ah abwaan ah fannaan ah haddii alla kuu reeyo aqoon-yahan ah oo aan iska weynayn bahda fanka iyo suugaanta soomaaliyeed ee maalin walba sidaan u dhex fadhiya taariikh cajiiba ayuu reebay oo mar walba ka fikira dhaqanka iyo suugaanta soomaaliyeed say hore ugu mari lahayd dowladdana mar walba u geeya cabashada fanka iyo suugaanta soomaaliyeed kana soo miro dhaliya ayaan u mahad celinaynaa waxaana leenahay guulayso 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 بسم الله الرحمن الرحيم وزيرك ورفافينتا لقنك إيد الحيسكا مدني عبد الفتاح جبريل عبد الفتاح قاسم هذا الهلمانكم مجرى إقرار لي هذا آبهنا ماريهنا هوري odaygeena abwaan xaaji cabdiduux yuusuf xasan abwaankeena khaaliga ah abwaan bare maxamed fidow agaasimaha wax soo saarka abwaankeena salaad cabdulle abwaankeena xeebow abwaankeena yaasiin abwaankeena jamaal agaasimaheena ciyaartooyda hidaha iyo dhaqanka agaasime axmed abuukar abunaa wiilkeena farsamo yaqaankeena directorkeena maxamed axmed shareeco wiilkeena fanaankeena heesaageena jilaageena ma aan idhaahdo aadan maxamed ciise kaamarmeenkeena waa badan yahay
dad waxaa jira taytaladooda badan yihiin oo macnaa kiyaawo ingiriis ah. fanka naftiis wuxuu leeyahay kiyaawo ingiriis iyo kiyaawo caadi uu kala leeyahay. qaarkooda hal bool ay furi karaan, hal bool ay furi karaan. diyeesha waa diyeesha furi karaan, noo waa noo ay furi karaan, duu waa duu ay furi karaan. qaar laakiin uuna waaye ilaa diyeesha way furayaan. inkastoo hay-ad kastaba ay ku jiraan laakiin ay ku yar yihiin, ay ku yar yihiin. maanta farxaddeeda lama soo koobi karo. waxaan aad u jeclaan lahaa inuu maanta nala joogo casuumaadan isaga hogaamiyo maareeye abwaan cusmaan cabdulaahi guure, laakiin meeshuu ka maqan yahay annagaa matalayna. maareeyaheena walaalkeena annagaa matalayna, dhammaanteena matalayna. taas waaye. aniga maanta farxaddeeda lama soo koobi karo. hadalka inaan badiyana ma rabo, mana ii istaagooyo, mana ii istaagooyo. waa yaabanaaba taraarax lan gelooyaaba, taraarax lan ku socdaaba maaragtay. marka laakiin waa isku dayaa markaan inaan khasab ku soo gaabiyo insha allah. abwaaniinta waxay yireen maalin maalmaha ka mid ah, maalin taariikhi ahayd, waxay yireen macnaa qof aan fariidda qabin xaalkiisa fariid maaha ay dhaheen. waa kana aabbaheena iyo abwaan xirsi dhuux iyo bashiir cali xuseen iyo rag badan oo hadda inta fadhiyo iyo qaar kaloo maqan. marka qofka markii uu asaga uu nuuraayo, markuu magaalada socdo uu nuuraayo oo maaragtay oo soo carfaayo, gadaaluu ka dhisan yahay, gadaaluu ka dhisan yahay. laakiin guriga haddii indhaha loogu shidahaayo weligiisa ma farxaaya asaga. aniga alxamdulilahi rabbilcaalamiin. fariidda ilaahay ha barakeeyo, caafimaad taam allah siiyo, ayada iyo caruurteeda iyo waxay dhaleenba. abwaaniintaaba dheheen, waxay dhaheen fariidda qof aan qabin, ninaan qabin fariid maaha. markaan alxamdulilah fariidda oo jaceylkeeda iga dhamaaheelin mar walba igu soo zaa'ida. maanta oo kale maba ugu jirabay, maanta oo kale yaraanteenaba soo xasuusanona lamadeenaba. marka waxa waaye xaalkeena fariid waaye alxamdulilah. wasiir aadaa u mahadsan tahay. waxaad tahay wasiir oo isaga macnaa annaga naga mid ahba, isaga annaga naga mid ahba. jaceylkan waa loo duceeye, adinkana ducada lee duco ku dara ilaahay idinkiis inuu shaydaan naga fidnaynin. jaceylkeena mar kasta asii korale, asii socda le maaragta, korle horle oo socda maaragta. marka aadaa umahadsantihiin, aadaa umahadsantihiin. waa isceli lahay, waa isceli lahay, waa isceli lahay. soo dhawaada, gurigiina waaye, gogashiina waaye. khayrka oo yaalo, qaar waalidaa u tihiin, qaar waalidkas iyo waalidaa u tihiin. aniga macnaa wasiirka macnaa aabbaheena tahay haddii dhaho macnaa difaac badan uu galaa, waa ogahay. meeshaan waa sanadaa la isku tirsaday, dhowr jeedaa sanad la tirsaday. aniga marka sanadkeyga waa haaya usi hadda haddii sheego difaac uu ku arooraa wasiirka. taas marka mama la sheegaayo. wasiir soo dhawow, maasha allah. walaalkeyga, walaalkeena axmed waxaad tahay nin yaro weyn. da saas u badan ma jirto, laakiin laftaada kuu boodi, ilaahay kuu barakeeyo, waxba kama qabno. laftaada aa kuu booday, weli duqnimo ma gaarin adi. waxaa ku jirtaa dhallinyarnimo meeshii ugu macaaneed, laakiin weji duqeedaa leedahay, ilaahay kuu barakeeyo. weji duqeedaa leedahay, ilaahay kuu barakeeyo, waxba kama qabno. marka aadaan idin soo dhaweynaa walaalahey. waa maareeyaheenana isagana safarkiisa ilaahay idinkiis, safarkii guulaystay, safarkii najaxay, safarkii liibaanay.
ilaahay ha uu dhigo ilaahay idinkiis meeshuu tago nuur aan dameynin oo nusqaan lahayn ilaahay ha ku siiyo insha allahu tacaala isagoo faraxsan iyo annagoo faraxsanna ilaahay hana wada kulmiyo soo dhowaada khadada aabbaheena furay haddana aslee dhahaa waa la cuni karaa hadday casiri waa furan tahay casiri mogtahay hadda marka waxaa isku daraa ta'kiidaas ka dhigaa waa la cuni karaa asku daraa hadda may mdida isagaaba kuusii gaabiye kasoo horjeedaabe jiido baa la taagay aabaadaa ku siiyey martiqaadku qadada waxa meeshaan la keenay oo quruxda badan oo macaanta badan oo indhaha u roon oo dhuunta u roon oo caloosha u roon waa furay tahay horta wixii hadal ahaa odayaasha hadlay waxaa waaye hadal ima furna waxaan marka koowaad ka mahad celinayaa marti sharaf qaadkan uu noo sameeyey maarey ku-xigeenka abaan maki xaaji banaadir waxaan mar labaad u mahad celinayaa si qaas ah wasiir cabdifataax qaasim waxaan qasiir inaan rabo inaan kaga sheekeeyo waxaa waaye sida wasiirka loo keenay weli kama hor hadlin hadda ka hor nin salaad leeyahay saaxiibkay agaasimaha wax soo saarka agaasimaha wax soo saarkan dhowr mar siyaasadda inta isla falanqeyno oo wuxuu dhigi jiray xasan sheekh waxaan ku qiimeynaa wasiirka uu keeno maxaa la yiraahdaa wasaaraddan warfaafinta wasiirka uu keeno aan ku qiimeynaa dhowr mar wasaaradda sidii rabo noqon weyse anoo baasha ugu taagan tahay wasiir cabdifataaxna inta badan social media ku arki jiray nin aqoon-yahan ah oo maxaa la yiraahdaa dadaal badan inuu yahay social media dadka hal guriyo ka soo dhigay iyadoo is aqoon waxaad moodaa dadka inay aad u taqaan galabtii la soo saaray maxaa la magacaabistiisa salaad soo wacay wasaaradda ninkii ku habboon hadda la keenan ku hori yaa ku baro dhaay aniga waxaan cabdifataax qaasim shakhsi ahaan u aqaano laakiin social media ku arkaa nin dhalinyaro oo maxaa la yiraahdaa waxa qabad activity lu waay okay maalintii labaad isku nimid wuxuu yiri hees lagu soo dhaweeyay laga rabaa ma sha Allah مسؤول شعبكيسو ربي منانو لها برشدا عدي ما انتلو وكي شيء وزارة ومقامي مدن وزير عبد فتاح halkaad waxaad u timaadeen aan hagar lahaynba caawaad laga helay